ورسابك قبل كسناق محمد علي سليمان رباح مدة تضبط صفر شقوق مقنع دين عاصمة السوماليلاند هرقيسا ayaa kadib habeenkii xalayta oo dib ugu soo laabtay magaalada gobolka Sanaag ee Ceerikaabo wuxuu saaka waanu ku booqanay xafiiskiisa wareysi gaar ah shabakadan Odweyne News ka siiyay socdaalkiisa iyo waxyaabaha uga soo qabsoomay safarkiisii waxaana barasaab Ramaax ugu horeyn isagoo ka hadlaya arrimaha socdaalkiisa hore salka ku hayay iyo muddadii uu gobolka ka maqnaa wuxuu hadalkiisa ku bilaabay sidan runtii su'aashadii weydiisay su'aal muhiim ah oo muddadii imika oo ku dhawaad 20 cisho aan gobolka ka maqnayn iyo hawlihii qaran ee aan ku maqnayn runtii marka hore waxaan aad iyo aad uga xumahay inaan muddada inta laageen lagu baato socdaalkaas kuma inta la gelin imikadana hawshiina loogu yeeray oo aan weli dhamaanin ayaa ka nimi hawlaha iyo duruufaha jira gobolka awgood waxaan ku tagay socdaal aniga iyo maayarkiiba magaalada Hargeysa oo runtii wax badan ay naga xidhan yihiin caasimadii dalka hadday tahay hawlihii maamulka hadday tahay ololihii la dagaalanka xaalufinta hadday tahay jaamacadii iskuuladii oo dib u furmaaya iyo hawlihii ka xidhnaa miisaaniyadii oo naftigeeda yaro ololeynay bal in meelaha qaarkood waxna loogu daro arrintii caafimaadka oo runtii iyaduna taagan oo aan ka hawlgalay si kharash iyo dhaqaale loogu heli lahaa caafimaadka gobolka iyadoo qayb la siiyay haddana inaanay qaybtaasi si aanay ugu bixin wax aan qorshe lahayn ama loo qorsheeyo dhismayaal iyo waxaan dadka anfacaynin ee loo qorsheeyo siday caafimaadka wax uga tari lahayd oo taladeedii iyadana soo dhiibanay runtii hawlahan u tagay gobolka waxyaabahaas ay ahaayeen qaarkoodna wax badan baa nooga qabsoomay qaarkoodna weli qabi ayaanu kaga nimi taas waa tii socdaalka isagoo faahfaahin ka bixinaya sababaha keenay iyo arrimaha kalifayshada uu sheegay inuu soo degdegayna wuxuu intaas ku sii daray waxyaabaha uu soo degdegnayna waxa kamid ah iyadoo bedelay maamulkii jaamacadda iyadoo ay socotay hawshii la dagaalanka xaalufinta oo aad ka warhayso oo ilaa hadda ciidankii uu ku dhex jiro waxaan u soo qaadnay hal gaari oo kale oo ay ciidanku ku samayn karaan eriyasho ama dabagal haddii labada gaari ee sariyanaya ay laba gaari oo isku nooc yihiin runtii dhibaatadaasi oo ciidanku ka soo cawday ayaa waxay noqotay in loo doono gawaadhi fudud oo u khaasa la dagaalanka xaalufka iyo weerarka lagu soo qaaday deegaanka taa iyada oo gaadiidkan kii ugu horeeyay imika noo yimaad kulay arki doonto xafiiska horteeda uu taagan yahay oo isla maantana ku wareejin doono ciidanka u gacan gelin doono sidii uu hawshiisa u gudan lahaa baabuurkaasi waayo marka la sheego 40 kilomitir buu gaari caynkaasi maraya wuxuu bal lagu eeriyan karaa gaari fudud ayaa lagu eeriyan karaa taas awgeed oo codsigii ciidanku keenaya ama aanu indhahayaga wada ku aragnay ayaanu goosanay in laba gaari lagu soo xoojiyo ciidanka la dagaalanka oo ilaa hadda meel kastaba haato gobolka dhan walba dadweynuhu ay runtii aad iyo aad u soo dhaweeyeen 5 gaari oo baayimka ka hawlgala oo u badan gawaadhida ciidanka laakiin gawaadhida ciidanka oo kaliya kuma deynay waxaanu bixinaa maintenance-koodii waxaanu bixinaa shidaalkoodii waxaanu bixinaa ciidanka berdiinkoodii maalintii qarashkii loogu talagalay iyo qarashkaanu galay oo aad u kala duwan yahay inkastoo weli qarashkii naga maqan yahay oo ama ku sii qaadanay shidaaladii iyo wixii aanu anagu qarashkayga ka bixin karaynayna aanu soo diyaarinay maanta waxaanu maraynaa daalacana lagu leeyahay lacag ku dhowlow $9,000 hase yeeshee 9,000 iyo 10,000 iyo 20 midna u joojin mayno shaqada waan wadaynaa sidoo kalena warasaabkan Sanaag isagoo baaq u diray qurba joogta reer Sanaag si ay hawshan la dagaalanka xaalufka deegaanka kaalintooda uga qaataan wuxuu yiri qurba joogta oo in badan lahaa waxbaan idinka tari karaynaa khaasatan qurba joogta reer Ceerikaabo oo dib u dhiganay oo ugu talagalay marka hawshu noo hirgasho hawshu way socotaa ka soo qayb galabaan iyagana leenahay taas oo ay hore noogu ballan qaadeen khaasatan qurba joogta reer Ceerikaabo inay gacan naga siin doonaan runtii maanta loo baahan yahay shaqadii inay istaagto looma baahna waa inay socotaa waanaan wadaynaa warasaabka Sanaag wuxuu sidoo kale halka baaq ku aadan sidii hareeraha la isaga taagi lahaa ilaalinta la dagaalanka xaalufinta deegaanka uga diray
mas-uuliyiinta gobollada Togdheer iyo Sool. waxaan weliba ku baaqayaan gobollada kale ugu baaqaya in gobolka Saraar, Laascaanood iyo Togdheerna ay iyaguna tallaabooyinkii aan intii kaga hadhine ay culays badan saaraan khaasatan kantaroolada waa aafo u gaar ah had iyo jeer ay ku celcelinaa Ergaabo iyo Sanaag laakiin waxaan loo dhaafay imika dhinacii Burcaan loo dhaafay wadankuna waa wadan furan meel walbana way ka wareegayaan marka waxaan leeyahay aan wada qabano dhammaan gudoomiyaasha gobollada iyo taliyayaasha qaybaha iyo ciidamada qaranka waxaan ka codsanayaa in ay hawshaasi iyaguna gacan naga siiyaan oo cid waliba ay halkeeda xaslato mas'uuliyadda runtii ka saaran isagoo ka jawaabayay halka ay marayso hawsha diiwaangelinta muwaadiniinta ee beryahan murankeedu ka dhaxaloosnaa xukuumadda iyo axsaabta mucaaradka isla markaana arrintan diiwaangelinta awgeed baqay halka uga diray axsaabta mucaaradka odayaal dhaqameedyada iyo dhammaanba beelaha reer Somaliland wuxuu yiri wallahi hawshaas horta waa hawshii ugu muhiimsanayd ee aan u tagnay waxaan filayaa kullu guddi baan ku jiray oo guddidii gobollada ayaa lagu daray meel fiican inaan soo gaarsiinay kullu wasiirka arrimaha gudaha iyo guddidii farsamadana waxbaan isla ogolaanay in guddi iyo in kastoo ay harsanayd guddida heer qaran oo iyagana filayno inay aqbali doonaan soo jeedintan soo jeedinay iyo qaabka loogu talagalay in waxaan u hirgalaan runtii waxaan aad iyo aad uga xumahay arrin aan aad iyo aad ula yaabanahay noqotay dadka jahwareerinaya ee wixii waxaan ahayn ugu sheegaya qofku muwaadin hadduu yahay waa inuu taysaradiisa siista waa taysaro waa aqoonsi waxaan la qaadanaya aqoonsina qof kasta oo Somaliland uu u baahan yahay si aynu isaga socono ciddii kale aan xaq muwaadinka aan lahayn waxa weeyaan waxaan arkaa dawladdu inay fulinayso waajib ay lahayd inay fulinayso kuwa mucaaradada ka dayaya ku hadlaya afafka xisbiyada qaranka ama website-yada sida qaldan dadweynaha wax loo fahansiinayo ee ka dayaya runtii mucaaradada runtii waxaan leeyahay meelo badan oo mucaaradadu idin dhaami lahayd inaad ka gashaan ayaa jirta waxaan aad iyo aad ugu qanacsanahay mashruucan inuu fulo oo mid waajib ah qofkii u baahan uu qaadanaya anoo shaqadii waan bilaabaynaa sidii aan soo qaadanay gobollada hawshii ka mas'uula waxaan filayaa gobolkayga oo ugu ballaaranay in qorshihii aanu gudbinay iyo kuwii wasaaradda iyo guddida farsamadu ay soo gaadheen inuu nagu filaan doono inaan muddada 6 bilood haysano oo tiim wareegana aanu samaysano wax iyagana isku qorshaysano ayaanu anagu kulli door bidnay kuna fulinaynaa hawshan waxa kale aan iyagana runtii halkan uga baaqi lahaa kuwa beelaha magacooda yiraahdo waan ku hadalaa ee iyaguna wax aan qiimo lahayn runtii qiimaha u yeelaya hada iyo jeeraale ku baaqa reer hebel baa sanaaduuq lagu yareeyay ama reer hebel dawladda ka mas'uula dawladdii baana mas'uuliyaddan saaran tahay in ay dadka u fududayso sidii ay u gaari lahayd waxaan oran lahaa gobol kastaba ha noqoto ama degmo kastaba ha noqoto in dadweynuhu ka waantoobo kala garto hawsha ay leedahay dawladdu iyo hawsha ay leeyihiin odayaasha beelaha ama reeraha ee hada iyo jeeraale sida qaldan ugu dooda imika 18 cisho ayaanu joognay Hargeysa hawl badan baanu ka qaban lahayn gobolkan joognay haddii aanay soo bixin hadallada caynkaas iyo buuqyadaasi oo runtii dawladana ku dhiirigelinayo in go'aankeeda ay fuliso cidna aanay ugu habranin mucaarad iyo muxaafitoona iyo odayaal toona aan loogu habran waxa kale aan dadweynaha reer Somaliland dhammaan ugu baaqaya waa aqoonsi waxani waa ogtiin dadyo badan baa dalkayna kula nool oo u badan dad soo shaqo tagay oo dalalka jaarka ay nooga soo gudbay aqoonsigu weyna kala soocaya waxaan idinku dhiirigelinayaa in dadku qaato aqoonsiga hal naaskeed qofka gaadha waxaan ku dhiirigelinayaa iyo magaalada inuu qaato aqoonsigaasi waxaan ballan qaadaynaa inaan fulino ummadda sida sax ah aan ugu sheegno oo in qofku u baahan yahay caafimaad tagi kari maayo boliis ma ashtakeyn karo xuquuq muwaadin ma helayo ilaa qofku uu qaato aqoonsigiisa ee kaarka muwaadinimada ugu dambeyntiina
warasaabka gobolka Sanaag isagoo ka jawaabay halka uu ku dambeeyay khilaaf maalmahan u dambeeyay soo kala dhex galay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maxkamadaha iyo booliiska Ceergaabo wuxuu yiri runtii hawshaasi mas'uuliyiintii gobolka sii joogtay kale ayaa dhameeyay aad iyo aad waan ugu mahadnaqayaa waxaan jecelahay inaan hawshaasi iyo waxyaabaha noocaas oo kale mar dambe aan gobolka dib uga soo bixin waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish shabakada caalamiga oo Odweyne News magaalada Ceergaabo